ganacsatada suuqmugdi ee magaalada Gaarisa ayaa cabasho ka muujiyeen daryeel xumada ka jirta suuqa ugu weyn Gaarisa ee suuqmugdi iyo gaar ahaan khasaaraha joogtada ah ee ka soo gaara gubidda suuqa isla markaana ay baaq u dirayaan gabanaha dhawaan la dhaariyay Mudane Nadiif Jaamac inuu ka dhabeeyo go'aankiisii ahaa in uu suuqa ku sameeyo dib u habeen nidaamsan oo wadooyin leh ammaankeedana sugan yahay annagoo bilcaanti suuqmugdi waxaan ka hadli rabnaa ajenda annaga aan wadanno oo dhib mar walba nagu dhaco oo xaq Ilaahay ka imaaday oo waxa noogu dhacayna waxa annaga gacmahanaga kula imaanay oo dariiqi naloo soo mari lahaa ama gaari uu noo soo mari lahaa ama nalagu dabdamin lahaa annaga aan iska xirnay dhibkaas aan haystaa mar walbana waan qasaarnaa intaasoo balyan ah naga gubataa oon ku qasaarnoon mooryaan ku noqonnay midda ugu dambaysay waan ku leednay oon ku qasaarnay oon mooryaan ku noqonnay oon ka soo kabsan laanahay waxaan doonaynaa dawladda inay gacanna siiso hadalka ay sheegtay sabood baan ku siinay jidka ha noo banayso dariiqa ha noo banayso dawladnimadeeda ha isticmaasho magacaygu waa Xayba Cabduqaadir Cismaan haweenku ku nool suuq mugdi waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrintan la wadwado maalmahan oo maxal jiray suuqa lagu hagaajinayo dhibka ugu weyn u soo baxnay waa ka oo idaacada noogu timid oo ku codsan inay noogu imaado way ku sharfan yihiin waxaan u mahadcelinayaa gafanaha iyo inta la socoto waxaan rabnaa inaan jid u helno suuq mugdi sida imaamada sheegtay waan ku raacsanahay waan ku faraxsanahay suuq mugdi waa lagu gubtay 5 sano yaa wax lagala baxo ay maalin walbana deen ay nagu qoran tahay oo dad naga bixinayana lahayn ma fahamtay marka anagu waan ku faraxsanahay in jidad la helo in suuqa la dhiso in nidaam loo yeelo dawladana ay isticmaasho xoogeeda ay isticmaasho dawlad haday dhahdo shacab baan la tashan meesha wax wanaag ka imaanaya malahan waan ku raacsanahay sabood baan ku siinaynaa waliba maalinka ay soo galaan biyaha iyo andhowga ka daba qaadaynaa nimanka shaqaalaha waan u taaganahay jidna aan helno nidaamna aan helno wada fiican oo qurxsan oo suuqa markuu dab dhaco loo soo galana waa inaan helnaa maalin walba qasaaraan taagan qasaaradeena Ilaahay ma ogi aadana u sheeganayna malaho marka waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynayna waana u heelanahay hadaana haweenka suuq mugdi shacabkana yaan wax laga dhageysanin hadaa dawlad tihiin dawladnimadiina isticmaalaan dhihi lahay soko tangu nilikuja hii ni mara ya 13 kusomwa na kila siku tunasomekewa na vitu. Sasa sisi siku hizi hakuna kazi tunapata. Watu walitusigira sisi wote wadani wanakaa nje. Kwa hivyo sisi tuko na shida sana watu ya soko ya ndani. Na hii hasara ya kusomewa kila saa. Sasa inasoma mara 13. Nikiwa hapo sokoni. Aniga Xalime Aadan Ibraahim waxaan ka hadli rabaa dib badan oo magaalada suuqa nagu haysto oo markastana dhaco 5 sano bacdigoodna dhaco suuqu ma 5 sano bacdigood buu gubtaa barabara loo soo mari male hataa haduu gubto Ilaahay weyna waaxidka waa dhibka keenan dhibkana bixiya laakiin dawladda sharafta leh gafanaha Nadiif Jaamac waxaan ku codsanaynaa inuu hadalkiisa hore uu ku adkaysto oo uu dhahay barabarahan bixin suuqa waan dhisi jidad baan u bixin kaasaan rabnaa inuu ku adkaysto dadkan gadaal ka hadlaay iyo gudigan dambe la sheegahay midna uu hadalkooda raacin gafanaha Nadiif hadalkii uu dhahay inuu ka noqdo diyaar uma neen waan ku raacsanahay waayo 15 sano aniga 18 sano suuqan ku jira cunugii aan suuqan ku dhaxdhalay maanta waa 18 jir foundry buu dhiganaya ilaa inta dhib kasta saan buu nagu soo dhacay 3-4 jeer baan gubanay suuqan haddaan gubnay hadda waa ka sii darnaa meel lagu soo maray male gaari male waxa mal qof markuu suuqa uu ku dhaxdhaco waa inaan anagoo bilcaan badan aan beebayna oo banaanka geyna gaari aad ku soo gali karo meel ku soo maray male maalin hore ma kaan gubnay nadarta bilcaynka waxaan indhayga aan saaray wiil dukaankiisa holcay oo furiina gacanta ku haasto dukaankiisa fiirna meel u maray malaho furu gacanta ku hay dukaankiisa saan u fiirin laba wiil oo kale laba booyad bay kansadeen oo biyo ah booyadii way taagan yihiin xagee marayaan way meel ay marayaan male marka dhibkaas weyn baan suuqa ku qabnaa 15 sano 18 sano suuqa waan ku dhex jirnay wax noo imaanay gurma dawladda ay wiilashan mar way isqaamay way imaanayaan oo wiilasha sida gafana hadda Cali Bari hore uu dhawaan idin dhisi waa la diiday dadka diidahaya waa dadka rabaan inuu suuqa ma garanay oo dadka ku faa'iideen ayaga kali un baa faa'iido ku qabaan dadka diidayaan annaga dhib weyn baan ku qabnaa runtii dhib weyn bay ku qabaan dadweynaha dhib weyn dhowr jeer aan sheegnay wax ka hoos qaaday maxaa yeelay ninkii madaxii markuu imaado hal ma hanoo dhisan dadka ayaga waxa ay dan gaar ahaaneed ay leeyihiin dukaanka weyn ee ducaalawan la yiraahdo markuu holcay 3-4 bari holcay saana loo wada fiirnay kala saana u fiirnay
meel loo maraa la waayo oo lagu damiyo dhibka waxaa keenay dadka jidka degan oo haddana diidahaya ma garanay in la dhisay hadii gafanaha nadiif waan ku raacsanahay hadalka uu dhahay ee dib yuusan nooga noqonin assalaamu calaykum marka gafanaha waxaan ka codsanaynaa sidii uu yiri suuqa waan dhisi barabaraan u sameeyni waan hagaajini inuu noo hagaajiyo sidii suuqan banaanka laga dhiso kale uu kor noogu qaado roob markuu umaada meel loo soo mara malaha adigi miiska kulaheedaan soo gali karin dad kale ku soo galay iska daay marka suuq inuu noo dhiso oo uu noo nadaamiyo oo jid uu noo bixiyo oo dadka banaanka ku ganacsanayeen uu banaanka ka soo bixiyo bilcaanta banaanka ka hadlayaan ayaga kira kuma jiraan anaga kiraan degan maalin kastana waan gubanaa maalin kasta dhibaato badan aan qabnaa ilmaan korsanaa ilmaan fii kala baxnaa rag waaweyn yaan jaamacada ka baxsanaa ilmo yaryar baa noo akhristaan ayaga kali ilmo ma akhristaan maalin kastana waxay dhahaan agoon baan nahay agoon baa naga gubad iyo dhib baan qabnaa marka anaga waxaan rabnaa dawladda inay sharafteeda ilaaso sida u hadasho go'aankeeda ay ka soo baxdo ganacsatada ayaa geesta kale ka dhawaajiyeen in uu suuqa leeyahay guddi nidaamsan muddo si hagar la'aan ah howlaha suuqa u soo wadeen lagalana xisaabtami kara wixii horumar ah ee suuqa loola baahan yahay balse haatan ay jiraan dad cusub ama kuwa ka mid ah ganacsatada suuqa oo danahooda gaarka ah fiirsanaya isla markaana ay carqaladeynayaan guddiga dhisan iyo wixii isbedela ee suuqa danyarta ku ganacsadaan lagu horumarin karo waxaa jirta guddi baa jira isbarbaryaace guddiga isbarbaryaace annaga waxaan garanaynaa guddigii hore oo shaqaynayay si nidaam ah hawsha ku wadi jira guddiga asagaan ku faraxsanahay aanan ku raacsanahay wax allaal wixii go'aan ay noo keenaan haddaana reer suuq mugdi guddigan cusuban oo hadda ordaayan anaga waxba kama naqaano meel ay wax ku qabtaana maba garanaynaba isdhan kastaba jidna uma ogolo jahana uma ogolo wax nidaam ay noo hayaan male laakiin guddiga hore dadka waxay ahaayeen jid iyo jaha ogol oo wixii talo loo keenana qaadanay laakiin kuwa hadda socda waxay guddi ka yihiin ani maba garanaybo tunasapoti hiyo kamiti kufanya kazi nzuri na waendelee hiyo wafanye hiyo kazi iendelee vizuri na hiyo mambo yote itimizwe ilaahay ma ogi wax ibn aadan ama hay'ad ama saaciideynay ma jirto annagunba iska dhex ordi jirnay wax meel nooga imaadana ma jirin oo hadda kamatiga loo keenay washman ahaata dadweynaha ahaata labada qof isqabsato washman waxa dhumiyo waxa liibay waa un guddigan annagunba ahayn guddiga waa kii hore oo magaalada marka hore suuqa ka tilnay oo suuqa guddiga ka ahaa kaasaan aqoonsanahay oo aaminsanahay wax alla waxay noo soo gooyaan guddigan dambe la sheegahay aniga qadkiisa kuma jirno laakiin gafanaha waxaan ka codsanahay iyo dawladda sharafta leh inay suuqa noo dhisaan oo ay barabara noo sameeyaan oo dadkan banaanyaha ku ganacsanahay anaga subax kasta waan soo kala hanaa waxbana ma gadano dad baa banaanka u baxay oo barabaraha ku daadsaday gaari meel ku soo maraya mana 20 gaari haddaad alaab saarato gaari makoon inaad saarato banaanka 50 shilin ku geysata waay dadweyne hadalkiisa hadday yeesho dawlad ma shaqaynayso dadkan dariiqa fadhiya aan gubanaynin mar walbana hor taagan oo naga reebay suuqa in naloo hagaajiyo hana laga qabto dawladda way mahadsan tahay hadalka ay ku dhawaaqday waan ku faraxnay ilaahay ha la garab qabto gafanaha iyo ku xigeenkiisa cabdi dhaqanaba waxaan rabnaa inay tilaaban nooga qaadaan suuqan waan ku ceertoownay xoolahanagii baa ku dhumeen waan ku baaba'nay waan ku dhib qabnaa suuqa ha naloo dhiso jidna ha naloo bixiyo intaasaan ani ka hadlahay waxaan naloogu dari oo kale lo'dan na dhibtay oo fayaasiga yaanyada dadka aan ka qaadna naga cunayso ha nalaga qabto iyadan